sida aad la socotaan golaha aqalka sare wuxuu isu taagay inuu dhexdhexaadiyo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isagoo gudanayay xilka dastuuriga ee ku xusan qodobka 61aad tirsigiisa koowaad iyo saddexaad ee uu xil saaraya in uu mas'uul ka yahay dowlad goboleedyada wakiil ka yahay dowlad goboleedyada haddaba iyadoo laga duulayo warbixinadii ay soo gudbiyeen wufuudii golaha aqalka sare ee loo kala diray dowlad goboleedyada iyo kulamadii gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo guddiga xog wareysiga xukuumadda federaalka ay la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda federaalka guddiga joogtada ee golaha aqalka sare wuxuu guddoonsaday inuu muddeeyo xilliga kama dambaysta ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadduba ku soo gudbinayaan waajibaadka laga sugayay sidaa daraaddeed waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa lifaaq ahaan go-aankii guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ku saabsanaa arrimaha kor ku lifaaqan waxaan isleeyahay qoraalkan waa mid aan u gudbinayno hay'adaha kala duwan laakiin waxaan wax yar rabaa inaan ka sheego 17 bishii hore ayaan wufuud u dirnay dowlad goboleedyada waxay ka soo ururiyeen warbixino iyo cabashooyinka taas markii ay keeneen ayaan ku dhaqaaqnay inaan xukuumadda u gudbino wafdi isna xukuumadda soo wareysta oo warbixin ka hela waxaana loo gudbiyey warbixinadii laga soo ururiyey dowlad goboleedyada oo u qaybsanaa laba arrimood kow qodobo ay dhammaantood dowlad goboleedyadu ay ka sinaayeen iyo qodobo gaargaar u ah mid walba tabashada gaarka u ah sidaa daraaddeed lagama helin weli xukuumaddii go-aankii aan ka sugaynay waxayna qaadatay muddo dheer waxa weeye 5tii bishan ayay wafdigii loo magacaabay xukuumaddu ay la kulmeen xukuumaddii laakiin waxa may soo dhamayn sidaa daraaddeed 2 jeer baanu dowlad goboleedyada madaxdooda ka codsanay inay dib u dhigaan shirar ay lahaayeen shirkii 10kii bishii hore iyo 15kii bishan waxa labadii jeerba way naga ogolaadeen waa uga mahad celinaynaa waxa ugu xigay 19 bishan ay sheegeen ma aanan wareysan maadaama aanan xukuumaddii weli war ka helin sidaa daraaddeed maadaama ay shalay ahayd 19 maantana ay sabti tahay oo aanan u gudbin waxa laga maarmaan noqotay in guddiga joogtada aanu fadhiisino si guddiga joogtadii go'aan uga qaato waxaana guddiga joogtada ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda federaalka arrimaha soo socda kow in jawaab laga sugayay madaxweynaha uu ku soo gudbiyo muddo 3 cisho ah gudahood oo ka bilaabmaysa 20 Oktoobar 2018 kuna eg 22 Oktoobar 2017 inuu diyaar u yahay wadaxaajoodka uu garwadeenka ka yahay golaha aqalka sare 2 in xukuumadda federaalka ay ku soo gudbiso muddo 3 cisho ah 2018 ilaa 2018 jawaabaha ay ka bixinayaan tabashooyinkii laga soo ururiyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kuwaasoo guddiga xog wareysiga xukuumaddu oo golaha aqalka sare ay ka wadaageen xukuumadda taariikhdu markii ay ahayd 5 Oktoobar 2018 3 in golaha aqalka sare uu go'aan cad ka soo saari doono aragtidiisa ku aadan khilaafka hadda jira haddii madaxweynaha ama xukuumaddu
ay ku guuldaraystaan hirgelinta labada qodob koowaad iyo labaad ee kor ku xusan. Assalaamu calaykum waad mahadsantihiin.